xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ahayd qaran laguna taageerayay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ka soo qayb galeen taageerayaal aad u fara badan oo gaaray xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ahayd qaran laguna taageerayay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ka soo qayb galeen taageerayaal aad u fara badan oo gaaraya ilaa iyo 1,000 qof ayaa lagu qabtay magaalada Buffalo ee gobolka New York. xafladan oo ahayd qaran ayaa waxaa soo agaasimay dhalinyaro aad u jecel waxqabadkii Farmaajo oo aqoon u leh in Farmaajo uu yahay rajada ummadda Soomaaliyeed. munaasabada dadkii ka hadlay waxaa ka mid ah gudoomiyaha Somali Bantu ee gobolka New York Moye Salim Malande oo aad ugu dheeraaday waxqabadkii Farmaajo wuxuuna si gaar ah ugu mahadceliyay Farmaajo isagoo sheegay inuu shaqadii ugu horeysay ee uu ka helo dalkan Mareykanka uu geeyay ilaa ay haatanna uu ka shaqeeyo. waxaa isagana xafladda ka hadlay Cabdiqaadir Buube oo ku booriyay Soomaali weyn inay taageeraan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna ku taageeraan daacadnimadiisa iyo Soomaalinimadiisa. wuxuuna si xamaasad leh u sheegay in haddii ay reer xamar yihiin ay aaminsan yihiin in Farmaajo uu yahay mas-uulka keliya ee daacad ku hogaamin kara dalka Soomaaliya. waxaa sidoo kale isna xafladda ka hadlay Cawil Kaarshe oo ka mid ah odayaasha magaalada ayaa sheegay in Soomaalida degan Buffalo ay wali ku naaloonayaan horumarkii iyo waxqabadkii Farmaajo uu u horseeday ka hor intuusan noqon ra-iisul wasaare. ugu dambeyntii waxaa xafladda khudbad dheer ka jeediyay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo dadka ku booriyay in qarannimada wax ka hooseeya aan la aadin hoosna aan looga dhicin qarannimada midnimadana la ilaaliyo. sidoo kale Farmaajo waxa uu sheegay sida uu uga duwan yahay siyaasiyiinta kale in aysan ahayn aqoon caqli balse ay tahay khibradii uu soo maray ay ugu horeyso inuu ku soo barbaaray guri ay ka ifaysay qarannimada Soomaaliya waalidkiisana ay ahaayeen howlwadeenadii SYL. ugu dambeyntii dadweynihii xafladda ka soo qayb galay ayaa waxay aad uga heleen wadani ay ku looqeynayeen qaar ka mid ah gobolada Waabari sida Faadumo Cabdullaahi Nakruma iyo waliba riwaayad gaaban oo ay soo jeediyeen fanaaniin caan ah oo majaajilada ku caan oo ay ka mid yihiin Maxamed Baristamool iyo waliba Lucky. xafladina waxay ku soo gabagabowday jawi farxadeed iyo waliba xamaasad Soomaalinimo.